haddii aan samayn lahayn wax kastoo aan samayntiisa awoodno waxaan samayn lahayn mucjiso. Waxa yiri Tom Edison, Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo sheegay in uu janno iyo naar abuuray. qofkii dadaalo aan adduunka iyo dhalaalkiisa ku siminay hadaf ka dhigtay in uu jannada galo oo camal wanaagsan qabsado uu janno ku abaalmarin doono Ilaahay subxaanahu wa tacaala. halkaas waxaa laga fahmayaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu bini'aadamku u sameeyay hadaf ay hiigsadaan taasoo aan naxariista weyn uu dadka ku abaalmariyo. haddaba adiga maxaa kuu diiday in aad hadafkaas hiigsato? maxaase kuu diiday in aad samaysato hadafyo yaryar oo noloshaada adduun quseeya maadaama islaamku horumar lahayn hadaf la'aan? maxaa kuu diiday inta aad nooshahay inaad xaqiijiso hadaf maanta aan dunida laga xaqiijin oo markaad xaqiijiso dad badan hiigsan doonaan? ogow adiga nolosha ma lihid go'aanna kama gaari kartid jiritaankeeda, mana ogin mar aad dunidan ka tegaysid. daqiiqadii ku dhaafta adiga ma xukuntid, tan soo socotana adiga ma xukuntid. kaliya waxaa ku anfacaya daqiiqadaha aad ku jirtid wixii aad uga faa'iidaysatay aakhiro iyo adduunba. horumari naftaada, yoolalna dejiso, hawlahaaga siday u kala muhiimsan yihiin u qabo. sidoo kale hawl kuu taalana dib ha u dhigan marna. xeeladahan aan ku soo bandhigi doono waa xeeladaha dhabta ah ee guusha lagu gaaro, kuwaasoo la tijaabiyey dad badan oo guulaystay, ayaana laga soo xigtaa iyagoo la xaqiijiyey in ay tahay waddada dhabta ah ee ay mareen. guusha iskama timaado, waxayna u baahan tahay inaad marto waddada guusha iyo xeeladaha lagu helo. tusaale, haddaad doonayso inaad ku guulaysato tartanka dheer ee orodka, waa inaad marka hore u tababarataa sidii aad ugu ordi lahayd waddada dheer ee tartamayaashu ku ordayaan. tusaale kale, haddii aad doonayso inaad hanato qof qalbigiisa, waa inaad u tababarataa sidii aad marka hore qofka qalbigiisa naxariis ugu abuuri lahayd. haddaba muhiimadda hadalka aan uga socdaa waa inaad barataa sababta guusha lagu kasbado. xeelada koowaad, rabitaan xooggan. rabitaanka xooggan ee aad si dhab ah u rabto waa waxa kaliya ee kuu suurogeliya inaad wax samayso. bal u fiirso tusaalahan yar. ka soo qaad adiga oo baahi daran ku hayso, maxaa samayn lahayd? jawaabtu waa iska cad, waxaad raadin lahayd meesha kuugu dhow ee aad ka heli karto cunto. haddaba ka waran haddii aad iska dhaadhicisid inaadan helin wax cunno ah. xeelada labaad, dhinaca wanaagsan wax kasta ka fiiri. dhinaca wanaagsan oo wax laga fiiriyo aynu ka eegno xagga diinta oo ah marjaca. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu xadiisul qudsi ku leeyahay, addoonkaygu waxa uu iga malaysta ayaan ahay. haddaba ka waran haddaa markasta rabbiga ka filato inaad dhibaato ku dhacayso, waad isleedahay waad guuldaraysanaysaa. waxaad alle ka filatid ayaad leedahay, mid wanaagsan iyo mid xunba. sidoo kale wax kastoo aad aragtid dhinac wanaagsan ka eeg. ha noqon tixsi dadka xumahooda raadiya, ee noqo shini dadka malab macaan u samaysa. xeelada saddexaad, kalsooni. kalsoonidu waa inaad naftaada u aragto mid soo saari karta ama wax soo kordhin karta, guulna gaari karta. naftaada markii aad ku kalsoonaato ayaad hiigsan kartaa waxaad rabto, waana furaha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaaro. hal fure oo muhiim ah guusha waa kalsoonida, sidoo kale hal fure oo muhiim u ah kalsoonidana waa diyaargarowga. kalsoonida waxay ku siinaysaa awood aad hawl ku qabato, taasina waxay kuu horseedi kartaa in aad si dhib yar u guulaysato. kalsoonidaas oo ku horseeda horumar weyn, taas oo kaa dhigaysa ruux ku habboon xaqiijinta hadafkiisa. naftaada oo ku kalsoonaata waxay kaa dhigaysaa mid wax walba qaban kara. naftaada haddii aad kalsooni siisid, waxaad jiidi kartaa ku dhowaad wax walba. sidoo kale naftaada oo aad kalsooni siisaa oo aadna cidna la barbar dhigin waa jidka guusha. xeelada afraad, dhaqan wanaag. haddaad rabto inaad guulaysato, waa inaad dadka si fiican ula dhaqanto, kana fogaatid in aad dadka kula dhaqanto dhaqamo xunxun. dhaqanka wanaagsan waxa uu kaa dhigayaa mid bulshada uu ku dhex nool yahay ixtiraamaan, noloshiisana ku guulaysta. anshaxu waa buundada u dhexeeya yoolka iyo guusha. xeelada shanaad ee ugu dambaysa, iskaashiga. Allah subxaanahu wa tacaala markuu abuuray koonka waxa uu ka dhigay mid labalaba la iskugu tiirsan yahay. taasi waxaa ka dareemi karnaa in iskaashigu dunida lafdhabar u yahay. inta badan waxyaalaha ama noolaha aad arki doonto sida cirka, dhulka, labka iyo dhadiga iyo in kaloo aanan halkan kusoo koobi karin, wada shaqayntu waxa ay yaraysaa hawsha, waxayna badisaa guusha. farkelina fool ma dhaqdo. bulsho waxay horumar ku gaartaa iyadoo dadkeedu iskaashado oo isku kalsoonaadaan. iskaashigaasina waxa uu horseedaa midnimo iyo wadajir. meesha ay midnimo ay taalina guul baa taal, maxaa yeelay iskaashato ma kufto. haddaba intaas ayuu ka egyahay mawduuceena oo ku saabsanaa xeeladaha guusha. tan iyo muuqaalka saxiinta ku kulmi doono waxaan iga tegayaa sidaas iyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.